hogaanka sare ee maamulka gobolka Banaadir oo uu hogaaminayo duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa kormeer dhowr saac qaatay ku tagay 17 degme ee gobolka Banaadir si loo muujiyo gurmadka loo sameeyo dadka danta yar ee saameeyay roobabkii daay saacadii la soo dhaafay. gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ugu horeen booqday dhismihii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha ee degmada Boondere oo ay ku noolaayeen dad barakacyaal ah, waxaana ku soo dumay dhismaha ay degnaayeen iyadoo laga soo saaray 2 ruux oo dhismahaasi ku hoos jiray kadib iskaashi dhaxmaray waaxda gurmadka degdega ah iyo debdemiska ee dowladda hoose xamar iyo dadka deegaanka, iyadoo xilliga lagu mashquulsanaa badbaadinta dadka ku hoos jiray dhismaha dumay uu goobjoog ka ahaa duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Filish. sidoo kale kormeerka madaxda maamulka gobolka Banaadir ayaa ah mid ay ugu kuurgalayeen saameynta ay daadadka roobka ku yeesheen isticmaalka wadooyinka. qaar ka mid ah wadooyinka caasimadda oo uu gudoomiyaha gobolka Banaadir kormeeray ayaa qaarkood burburay, sidoo kale qaar kale ayaa roobka biyo dhigay. gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka Banaadir ayaa mid u booqday guryaha ay ku nool yihiin qoysaska danta yar ee uu biyaha roobka gudaha u galeen. waxay sidoo kale mas'uuliyiintan kormeer luga ku marayeen wadooyinka ay biyo dhigeen roobabkii daay. waxaan deganay islaam umulaha ayaa deganay qolkan marka xaaladeedu ay xumaato daadadka ay soo galeen ay buuxdhaafiyeen waxaa ku soo degdegay maamulka degmada marka waa laga daadgureeyay iyada iyo dadka kale guriga deganaa qaybihiisa kale. agaasimaha guud ee waaxda howlaha guud ee dowladda hoose xamar ayaa ugu horeen ka warbixiyay gurmadka ay ugu diyaarsan yihiin dowladda hoose xamar. booyadaha hadda noo shaqeeyo waa 8 haddana waxaan ku soo darnaa caawa 5 kale waxaan qiyaasaa 13 ay noqon doonaan beritoolana qaybo kale aan ballansannahay iyo wixii kale oo voluntary noqon doona insha allahu tacaala. sidii gudoomiyaha u sheegana dadku inay isgarabsadaana laga rabaa ay maamulka kaashadaan haddii ilaa idmo. gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir mudane Ibrahim Cumar Mahadal Ibrahim Dheere waxa uu sheegay in maamulka gobolka Banaadir uusan wax lacag ka qaadi doonin dhismooyinka burburay ee dib loo dhisaya. guryaha burburay oo roobka u waxyeeleeyay ee rabaan inay dadka dib ay u dhistaan lagama qaadi karo wax fasax dhismo ah. amarkaas waxa ka soo baxay gudoomiyaha anaga waa inay sheegaya marka wada shaqeyn wacan. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish oo gunaanadka kormeerkiisa ka warbixinaya ayaa tilmaamay in maamulka gobolka Banaadir oo kaashanaya shacabka reer Muqdisho uu xoojin doono gurmadka loo sameeyo dadka danta yar ee uu roobku saameeyay iyo sidoo kale dib u furista wadooyinka magaalada Muqdisho oo ay biyo dhigeen roobabkii daay. ilaa hadda maamulka gobolka Banaadir waxay isku dayayaan inay maareeyaan daadadka iyo biyaha faraha badan ee halkan jooga iyo waxyaabaha dadka soo gaarayba. maamulka gobolka Banaadir inay arintaas ku filnaadaan ayaan rajaynaynaa haddii alla idmo, balse haddii roobab kale oo mahiigaan ay yimaadaan bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Banaadir waxaan uga fadhinaa inay maamulka garab istaagaan badbaadiyaan dadka danyarta ah iyo dadka ay waxyeeleeyaan daadadka iyo roobabka. guryo badan ayaa dumay laakiin khasaare weyn uma jiro alxamdulillah. qaar badan oo barakacyaasha ka mid ah ayaan ka daadguraynay guryahoodii sida warta Siigaale barakacyaal u dhawaa iyo goobo kale. badbaadinta dadkaas ma ahayn mid aad u adag alxamdulillah. waxaan hadda u sii soconnaa meel kale oo sidaan oo kale biyo fariista oo isla degmada wada jir ah kadibna waxaan uga sii gudbi doonaa Dharkeynley. sidaas darteed howlaheennaan sii wadanaynaa. bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada rag iyo dumarba waxaan ka codsanaynaa inay maamulkooda garab istaagaan, shacabkooda ay badbaadiyaan. intii karaankeenna annaga waa ku dadaalaynaa. ilaa hadda wixii dhacay waxaan rajaynaynaa inaan mataqaanaa yani maamul ahaan annagu aan maarayno. Nuur Saciid Taaliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, degmada Boondere, magaalada Muqdisho.